Asalaamu calaykum dhammaantiin waani wada salaam meel walba adduunka ay ka joogtiin magacayga waa Nuurdiin cashir maanta waxaan igula talagalay oo ku saabsan qaab aad hilibka iskaga rudi kartid ama aad horumar kaga heli kartid wax walba aad mowqafka leedahay jirkaada ha noqoto calool dhis ha noqoto murqa helid ha noqoto muxuu ahaa miisaanka aad iskaga yareysid oo iyo sidoo kale caafimaad aad ku heli kartid macnaha jirka maxaa yeelay waa muhiim qofka inuu maalin walba jimicsado marka waxaan jeclahay qaababka aad ku arki doonto videogan inuu aad ila subin doontid sidoo kalena ku anfici doono muxuu ah marka koowaad saa ujeediinba stretch ayaan subinayaa maxaa yeelay waa muhiim qofka bini'aadanka inuu mar walba warm up yar subiyo wax walba noloshiisa uu subinayo ha noqoto jimicsiga jimka lagu jimicsado ha noqoto banooni ha noqoto wax walba lama rabo wax walba adigoo jirkaada kululeen inaad subisid marka saas ayaa la rabaa inaad stretch subis marka hadda qaabka ujeediin waxaa waaye jumping jack wax loo yaqaano marka koowaad qaabka koowaad cashirkan aad video ku arkaysiin maxaa yeelay muhiim ayay u tahay muxuu ahaa qofka inuu saas u subiyo haddii aad rabtid in xeerta dhaqsi ay ka dhacdo jumping jack aad buu u fiican yahay waa cardio fiican oo aad 100% waa ka fiican yahay muxuu ahaa mashiinada oo lagu subiyo cardioga sidaan ayaa ka fiican cashirka nooca maxaa qaabkan hadda aan subinayo kor oo badboodayo maxaa yeelay jirka dhan fiir kor lugaha meel walba macnaha waa isla shaqeynaya hal mar sidoo kalena waa quick oo macnaha oo cardio ah waqti badan kaama qaadanayo gymka waa ku subin kartaa guriga waa ku subin kartaa calories badan calories waxa loo yaqaan macnaha xeerta ayaa dhaqso macnaha miisaanka ayaa iskaga rudi kartaa sidaan ujeediinba qaabka koowaad markaan subiyo waa nasanaya marka nasashadana waa inay yaraataa lama rabo nasasho dheer macnaha mowqafka dhan baa u subinana cardioga noocan oo inaad macnaha horumar uga helno miisaanka dhaqsina iskaga rudno sida hore u sharaxay iyo qaab kale waa sadka labaad hadda waxaan subinayo saan filayo waxaan ka subinayaa 15 reps camal wax loo yaqaano muxuu ahaa qasab ma aha ama 12 ayaa ka subin kartaa 12 reps laakiin muhiimadda waxaa ahay numberka inuu isla simnaado haddii sadka koowaad aan ka subiyo 12 ama 15 waa inaa sadka labaadna sidoo kale subisa hadda sadka saddexaad ayaan subinayaa qaabkaan u dhahayo ila dheh haddii oo macnaha kuwa adkaatana aad saas u subin karinne oo ilaa iyo kor aada tegi karinne qasab ma aha qaab yar oo fudud ayaad arki doontaa oo macnaha oo haddii aad taa qof reer oo banooni ciyaaro waa muhiim inay lugahaada macnaha like jimicsiga loo baahan yahay ay helaan sidaad macnaha awood u lahaatid markaad ordeysid markaa banooniga gacan lugta ku haysid sida ujeedin qaabkan kalena waa qaab kale aad lugaha dambe aad ku dhisi kartid oo macnaha marba dhinac ayaad dhehaysaa laakiin muhiimadda hal lug ayaan tirinayaa labada lugood hal mar islama tirinay sidaas oo kale ayaa subinaysaa runaantii muxuu ahaa wax aad lugaha macnaha ku dhisi kartid adigoon isticmaalin biro culus maxaa yeelay badanaa waxaa aragtiin videoyaasha soo bandhiga lugaha ku saabsan ama aad youtube-ka ama meelaha ku aragtiinba anoo biro subinaya ama meel walba hadaa ka daawatid xataa dadka kale oo lugaha dhiso badanaa waxaa aragtaa ayagoo biro isticmaalaya lugaha ku dhisayo qasab maaha lugaha inaad mar walba biro ku dhistid sidaan fudud waa ku dhisi kartaa lugahaada weli sidaan oo kaleana ka safesan oo macnaha oo 100% aad macnaha aad lagu dhisan ku heli karto iyo macnaha lagu oo macnaha oo injury-ga oo macnaha qatar uma tihid haddaad biro culus qaadaysa ama biro aad subinaysid waxaa laga yaabaa haddaad si qaldan u qaadid inaad lugaha wax kaa gaaraan laakiin sida ujeedin baada jimicsigan waa safe waana effective oo waxaa ku helaysaa jir dhisan oo lugaha xaggiisa ah sidoo kalena muxuu ahaa waxaad ku helaysaa macnaha miisaan oo kaaga dhaco iyo si walba mowqif walba aad ka leedahay jirkaada xagga hoose lugaha sidaan aan subinayo usubi xisaabtana ha isla simnaato sid walba aan subinayo
ila suubi xoogaa yar naso sidaan hore u sheegay hadday kugu adag tahay zaaid qasab maaha inaa hore igala suubisid xoogaa yar naso sidoo kalena isku day inaad biyo cabtid waa muhiim muxuu ahaa marka sidaas ayaa lagaa rabaa in aad suubisid marka aad suubinaysid muxuu ahaa inaad diyaar u tahay jimicsiga noocan aad niyad u haysid oo aad ka niyad jabin yes waa kuwa hadii weligaa aad suubinin inay kugu adkaataa laga yaabaa laakiin wixii la bilaabaa dhamaystir leh isku day inaad micnaha aad ila suubisid aad ka niyad jabin oo aad ku celceshitid videogan maalin kasto sidaad micnaha aad jirkaada aad u siisid caafimaadku u baahan yahay oo ku saabsan xagga jimicsiga marka nasashadaada ha yaraato markaa nasatid qaabab kale ayaan u gudagalaynaa maadaama hadda xagga lugaha aan qaabab kala duwan aan kasoo suubinay hadda waxaan bilaabeynaa gacmaha su-aalaha ugu badan aan helo waxaa waaye qaas ahaan dumarka waxaa waaye gacmaha ayay ka sheegtaan oo maxaa yeelay dad waxaa arkaysaa oo miisaanka ka dhacay laakiin haddana gacmaha dhibaato ku qabo sida hadda ujeediinba haddii aad dumbbellska seriiska aad awoodid haddaad heli kartid soo gado sidaad gacmahaada ugu adkaysid sidoo kalena aad miisaanka gacmaha oo micnaha oo xeerta ay ka dhacday waxoogaa balaqbalaqa ugu adkaysid sidaa ujeediin baa hadda qasab maaha dumbbellska iyo risk inaad isticmaashid sidoo kale ayagoo adooda biro isticmaaleynin dumbbellskaas ayaad suubin kartaa sidaad hor u arkayseenba soo hadda saan suubinayo muxuu ahaa sadka koowaad ayaan hadda dhammaystiray oo micnaha 10 ayaan ka dhahan filayaa xoogaa yar been aan nasanayaa haddana sadka labaad ayaan u guda galayaa muxuu ahaa marka sidaas ayaa laga rabaa inaad suubisid isla markii sidaa ujeediinba waa inay nasashadaada ay yaraataa oo ayna badnaanin oo micnaha sidaad micnaha aad horumar uga gaartid marka muxuu ahaa sidaas ayaa suubinaysaa hadda sidaa ujeediinba gacmaha waxaan ka shaqaysiinayaa gacmaha shoulderska meel walbo wax iska dhiga qof adigu micnaha firtamaya camal laakiin muhiimadda waxaa waaye anaga in aan micnaha aan jirka ku leeno xeerta iskaga dhibno sidaad micnaha aad ugu heshid horumarka maxaa yeelay sidoo kale muhiimadda markii aad exerciseskan aan noocyadan aad suubinaysid maxaa yeelay waa muhiim qofka dad waxaa arkaysaa oo micnaha gym intaas sano dhiganaya ama muxuu ahaa oo haddana arki lahaa murqo badan muhiimadda waxaa waaye jirka xeerta saaran waaye ama sababtoo ah haddaad xeerta gubin micnaha jirkaada saaran ma arkaysid calool dhisan ma arkaysid murqo meel walba ha noqoto dhabarkaada gacmaha meel walba lugaha ma arkaysid maxaa yeelay hilibkii waxaa saaran faad so waxaan rabnaa inaan xeertaas gubno casharada noocan ayaa ku gubi kartaa adigoona mashiinta kaadiyaasha aad waqti badan aada gelinin si fudud sidaa ujeediinba hadda tricepka gacanta dambe sidaan hore niigu sheegayba gacanta dambe hadday rabtid inaad adkaysid ama aad yaraysid waad ku adkeyn kartaa jimicsiga noocan si hadda ujeediinba ama waxaa isticmaalayaa dumbbellska iyo riska ama haddaana birahaas haddaad haysanin qasab maasaan aan suubinayo ayaad suubinaysaa waad tirsanaysaa sadka koowaad waxay noqoto 10 12 15 inta jeer waa nasane wax yaro beenaa nasane haddana waa ku celcelinaya 3 mar camal sidaad micnaha aad horumar uga gaartid gacmaha so sidaan u sheegaba nasashadaada ha yaraato sidoo kale waa muhiim marka aad dhamaysid hadda waxaan soo dhisnay lugaha hadda waxaan soo dhisnay gacmaha
qaabka ugu dambeeyaan video aan ku xiri doono waa caloosha, maxaa yeelay waa muhiim. Muxuu mar walba jimicsiga badanaa waxaa arkay jimicsiga in aad macnaha jimicsiga jirka kale inaad dhistid mar walba aad caloosha hilmaamtid. Sida ujeediinba caloosha qasama adigoo fadhisid inaad ku suubisid, adigoo taaganna waa ku dhisi kartaa. Sida ujeediinba hal dhinac bas ayaan tirinayaa, inkastoo aan labada lugood marba mid soo qaadayo, laakiin islama macnaha hal lug leen tirsanayaa. maxaa yeelay waxaan rabaa inaan xisaabta aan la socdo. Haddaan lugtaan 10 ka dhahay, lugtaan kale 10 ayaan ka dhahayaa. sidaas ayaan ku wadayaa. Sida ujeediinba jirka oo dhan ayaa macnaha lugihii oo kala soo qaadaysaa calooshii. macnaha dhanba macnaha like waqtigaadana uu yar yahay. muxuu ahaa qaab walbo jirkaadana u baahnaa jimicsina waa suubinaysaa. sida ujeediinba caloosha hadda markaan soo qaadayo, caloosha dhan asla dhisayaa geesaha, lower abka, kor, meel walbo. sida ujeediinba saas ayaa laga rabaa inaad suubisid oo aad ka caajisin. yes, haddii hore u bilaaban weligaa jimicsina kugu adkaataa laga yaabaa, laakiin isku day inaad suubisid, niyad aad u haysid. wixii la bilaabo horumar laga gaaro ayaa laga caajisin. fadlan videogan saxaabta la sii share garay, sidoo kale youtube-kayga subscribe ideh. isma dhaafin, insha Allah kuwa badan ka faa'iidi doontiin waan soo wadaa. khayr ayaan idhaaf meel walba adduunka joogtiin. waxaan filaynaa diyaar u tahay jimicsigan.